markaad wax sadaqaysanayso oo naftaada iyo shaytaan la dagaalan waxa laga dambeysay aayada mubaasharatan markii la yiri war waxaan qiimo lahayn oo liitaha baxsanina aayada ka dambaysa mubaasharatan waxa la yiri ash-shaytaanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha xoolahaaga inta ugu liidata inaad aado waxa keenayo waa tala shaytaan waay shaytaan baa wuxuu ku leeyahay intan fiican reebo intan liidatay culayska adigaba aadan qaadatay intan isaga sabri masaakiinta ku dir yaa waa tala shaytaan shaytaanna faqri iyo baahigu idin yaboohi allana dambi dhaaf iyo abaal weyn sidaas tala waatinka arday qudisho group mudug gaar ahaan magaalada Bacaadwey oo aan ku soo booqanay hooyo tabaalaysan haysata ciyaal agoona oo qaybtood xanuunsan tahay gabadha liidataan ay ku jirto oo aan ku soo booqanay meeshan bukaankaas iyo baahanaha isku jira aan ku guddoonsiinano gudoomiyaha Cabdishakuur Ashkir lacag $50 oo noo soo wakiishtay ay isagana u soo wakiishatay hooyo Caasha Abuukar oo joogta Switzerland oo aan ku wareejinayo maamadii dhashay ilmahaas maxaad ugu ducaynaysaa dadka muslimiinta oo lacagta idin soo diray waxaan ugu ducaynayaa dadka walaalaha muslimiinta meel alla meel ay joogaan wixii deeqdooda soo gaartay in Ilaahay weynayo waaxidka ah ajir iyo xasanaad kaamil Ilaahay ku siiyo adduunkan ku caafiya qaran Ilaahay waxa weeye jannada firdaws ugu bishaareeyo maxaad ka codsanaysaa muslimiinta ku maqlaysa meel kasta ay joogaan daliya dibadba waxaan ka codsanayaa walaalaha muslimiinta meel kasta ay joogaan in waxa weeye ciyaal yaryar oo agoona oo la cunug inaan haysto oo waliba laba agoomood inaan haysto ilma xanuunsan ku jiraan anigu aan xanuunsanahay oo dhinaca midibka aan ka shaqaysan karin wax ka qabsan karinin oo suuliga daan fadhiista aan kici karinin oo dhinaca dhig kale ugu dhuftay ilmahan iga xanuunsan yahay 4 sano aan la wareegayay dalkana waxba looga qaban karin oo dhakhtar baa ku barbartay albawliyaashaas oo dhan baa isku tan hoosaysa u neefsanin feereed waa kuwa saa u burburay qaybtan hoose u noqoto meeqada silkaas ku jidhaa halkan waa kana habeen walba ay ugu taaysaa naqasku waa ku dhagayaa saxarada ma cisho karto habeenka xafaayad loo waayo waxaan ku diyaar garownaa saan saxaradeed oo xalalay saxarada ma cisho karto kaadi ma cisho karto guriga tobnaad dariska degan xitaa kama seexa kara qiiqdeeda anigana xanuunkeedaas aan karku igula soo booday marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala baa loo baahay Ilaahay kastoon muslimiin baa naay marka qof alla qofkii muslim waxna tari karta xaq dhaqaale iyo xaq caafimaad iyo xaq hantiyeed iyo dhan walbaba waana isaga baahannahay insha Allah Ilaahay dartiis way waxa noo siinay teleefankaaga iyo magacaygu waa Yusuf Maxamed Maxamuud Faarax teleefankaygu waa 7 marka waxaan ka codsanayaa Ilaahay dartiis caafimaadka wax lambarkaygu waxa weeye 7 magacayguna waa Yusuf Maxamed Maxamuud Faarax waa aniga oo aan Saciid Cabdullaahi Xasan oo baahanayaasha dhibanayaasha dadka u yimid kamid ah walaalahayga muslimiinta waxaan ka codsanayaa Ilaahay dartiis qof kasta oo gabadhaas arka iyo caruurtaas wuxuu ka qayb qaadan karaa ama siin kara inuu siiyo waa dadka sidaa u tabaalaysan waa dad tabar yar kuwa naaska nuugaya ku jira kuwa maxaa ku dhawaaweyn baa ku jira waxbarasho ma haystaan wax walba qosi kasta way u dhiban yihiin marka qofkii islaam oo beernaxaya waxaan ka codsanaynaa inuu wax gaarsiiyo gabadhaasna caafimaadkeeda haddii Ilaahay u qoro waxay la jeceshahay sida ay ii sheegtay hooyadu inaysan dalka wax looga qaban karinin loo sheegay marka wixii wax ka qaban kara inay wax uga qabtaan aad dhibanahaas meesha u yaala haddana